maanta oo ay taariikhdu tahay 18 bisha 8 Oks 2020 waxaan doonayaa halkan inaan kelmad yar ka iraahdo oo aan bulshada ugu iftiiminayo anigoo ah agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee dawladda hoose degmada Berbera waaxda arrimaha bulshada waajibaadkeeda shaqo iyo qaybaha ay ka kooban tahay iyo wixii kale faahfaahin dheeraad ah halkan aan maadaragtay bulshada u marin karo waaxda arrimaha bulshadu sida uu dhigayo hab maamulka dawladaha hoose ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waaxda arrimaha bulshadu waxay ka mid tahay 6 waaxood ee waaweyn ee dawladda hoose ee degmada Berbera waana waaxda ugu ballaaran marka la eegayo service providerska bulshada waa halka uu ka gaadho adeegu bulshada uu ka gaadho noocyadiisa kala duwan waaxda arrimaha bulshadu waxay ka kooban tahay 6 qaybood oo leh 6 madax qaybeed 6 qaybood waxay kala yihiin qaybta caafimaadka iyo fayadhowrka qaybta waxbarashada ciyaaraha fanka iyo suugaanta qaybta horumarinta bulshada iyo xiriirka dadweynaha qaybta wacyigelinta iyo arrimaha diinta qaybta gurmadka degdega ah iyo ka hortagga aafooyinka dabiiciga ah iyo qaybta nadaafadda iyo bilicda 6 qaybood ay guud ahaan marka hore ka koobanta 6 qaybood waxa ka sii farcama 13 farac 13 farac ayaa ka sii farcama 6 qaybood 13 ka farac waxa mid waliba leeyahay madax faraceed waajibaadka iyo duties-ka nidaamku u dejiyay ku sii shaqeeya 13 ka farac ayaa waxay kala yihiin iyaguna faraca 13 kaasi farac ayaa waxay kala yihiin faraca ka hortagga aafooyinka dabiiciga faraca gurmadka degdega ah faraca bilicda faraca nadaafadda faraca arrimaha diinta faraca wacyigelinta faraca xiriirka dadweynaha faraca horumarinta bulshada faraca ciyaaraha faraca waxbarashada faraca fanka iyo suugaanta faraca fayadhowrka iyo faraca caafimaadka qaybaha ay ka kooban tahay ee ah 13 farac iyo 6 qaybood qayb waliba waxay leedahay ama ay bixisaa adeeg gaar ah oo bulshadu u baahan tahay marka qaybahaasi waa qaybaha ama faracyadaasi waa faracyada ay ka gaadho adeega bulshadu oo fududeeya ama fidiya ama bixiya mid walibana waxay leedahay mandate u gaara oo sharcigu jideeyay iyo shaqooyin u gaara ayay leedahay inta markaan ka imaado waaxda arrimaha bulshadu marka la eegayo waaxyaha dawladda hoose waa waax aad iyo aad u ballaaran shaqaalaha ka howlgala waaxda waa ilaa 362 qof oo shaqaala oo isugu jira madax qaybeedyo madax faraceedo iyo shaqaale kale oo qaybaha iyo faracyada ku kala qoran tusaale ahaan haddaan soo qaato oo kale matalan caafimaadka oo kale nidaamka maamul daadejinta dawladaha hoose waxa uu siinayaa xaqa inay maamulaan dawladaha hoose ee degmooyinku caafimaadka aasaasiga ah oo runtii heer gobol iyo heer wasaaradeedba si aad iyo aad u qurux badan aan uga wada shaqeyno waxa uu siinayaa dawladaha hoose in la dhiso goobaha xanaanooyinka iyo BHU-yada dhismayaashooda iyo maamulidooda marka dawladda hoose degmada Berbera waxay gacanta ku haysaa dhammaan baraha caafimaad iyo dhammaan xanaanooyinka degmadu maamusho shaqaalahooda gunnada ay qaataan dawooyinka iyo waxyaalihii kale ee u baahan utilities oo kale leerka iyo biyaha iyo goobaha u baahan
sidoo kale waxaa jira wasaaradda horumarinta caafimaadku heer gobol inay iyaguna ku leeyihiin rool aada u xoogan oo ah inay iyaguna hay-adana nagala shaqeeyaan waajibaadka shaqana uu noo qeybsan yahay runtiina heer gobol aada iyo aad bay noola shaqeeyaan waanaan u mahadnaqaynaa isuduwaha iyo tiimkiisaba waxaa kaloo ku hoos jira qeybtaasi caafimaadka iyo fayadhowrka faraca fayadhowrka oo isaguna hygientii iyo waajibaadkeedii shaqo soo hoosgelayaan qeybta nadaafadda iyo bilicda qaybtaasina waa qayb aada iyo aada u xoogan oo xoog badan aanu saarnay hadday noqoto gaadiidka qashinka qaada noocyadiisa kala duwan oo runtii gaadiid casri ah oo ilaa 11 gaari gaadhaya aanu isticmaalno labada gelinba magaalada waa laga qaada qashinka isagoo noocyadiisa kala duwana hadduu yahay dareere iyo hadduu yahay qashinka qoyan iyo ka darayga intuu yahay solidkaaba 8 saacadood ayay shaqeeyaan shaqaaluhu runtiina guulo fara badan ayay kasoo hooyeen guud ahaanba marka la eego nadaafadda guud ee magaalada qashinku markaynu dul istaagno waa wax sikin walba dhalanaya laakiin xoogga waxaanu saarnay imkaaniyaadkii loo baahnaa inay ku shaqeeyaan inaanu u dhammaystirno iyo in 8 saacadood ee sharcigu dhigayay ay shaqeeyaan shaqaalahaasi wixii kale ee 8 saacadood ka saayidana in loo lacageeyo overtime loogu sameeyo sidoo kale waxaanu ku darnay iminka sanadkan iminka 2019 bilihiisii u dambeeyay ilaa haddana socda maalinta jimcahana in la shaqeeyo oo shaqaalahaasina saacadaha ay shaqeynayaan loogu bedelo lacag si routiinana ay u shaqeeyaan waxaa kaloo garab socota bilicda magaalada oo iyaduna qayb farac ka mid ah isla markaana qayb aada iyo aada lixaado leh ka qaadatay shaqaalahaas ay ka qaateen kor u qaadista nadaafadda magaalada iyo bilicdeeda runtii waxaa ka mid ah qaybta waxbarashada ciyaaraha fanka iyo suugaanta oo iyaguna ah qayb ka mid ah qaybaha waaweyn ee ay leedahay waaxda arrimaha bulshada oo runtii ah koor meelaha koorka ah ama qaybaha koorka ah oo ah dhammaan inaanu gacanta ku hayno waxbarashada aasaasiga ah dugsiyada hoose dhexe inaanu gacanta ku hayno ilaa 49 dugsi gaadhaya gunnada macallimiinta incentive-ka maamulayaasha qalabka nadaafadda laydhka iyo biyaha goobaha u baahan oo dhan iyo wixii kale maintenance iyo construction iyo extension inaanu ka qabanno sidoo kale waxaanu samaynay qayb ah kormeer oo quality-ga waxbarashada iyaduna dabagal ku samaysa oo aanu iska gaashanay xafiiska heer gobol ee wasaaradda waxbarashada sidoo kale waxaanu u iibinay 2 baabuur oo 4-wheel ah oo ay ku hawlgalaan qaybtaas qaybtaasi waxa hoos yimaada 3 farac oo faraca waxbarashada ah oo isagu waxbarashada gaar u ah faraca ciyaaraha oo ah ciyaaraha inaanu ka nahay qayb oo dhammaan tiimamka degmada ka hawlgala marka laga yimaado heer wasaaradeed iyo isuduwaha wasaaradda oo isaguna si fiican oo qiimale noola shaqeeya marka laga yimaado annaguna qayb muhiim aanu ka nahay madax faraceedkaasina uu la shaqeeyo faraca fanka iyo suugaanta ayaa jira oo ah farac isaguna aanu ugu talagalnay in dhallinyarada magaalada berbera ee mawhibada leh ama hibada leh inaanu ku soo ururinno oo ay alifaan waxyaalo isugu jira daraamooyin heeso iyo wixii kale fan iyo suugaan looga baahan yahay oo inta badan aan uga faa'iideysano wacyigelinta bulshada aan uga faa'iideysano iyaguna qaybta horumarinta bulshada iyo xiriirka dadweynaha waa qayb iyaduna aada iyo aada muhiim u ah oo ah qaybta bridge-ka isku xidha bulshada ka cabanaya ka baahan ka u baahan inuu maaragtay codkiisa la maqlo iyo dhammaan qaybaha bulshada ee u baahan adeeg in loo qabto inuu isku xidho xafiiska arrimaha bulshada iyo dadweynaha uu isku xidho oo jaranjaradaasi uu mas-uuliyaddeeda qaato shaqooyin fara badan oo aada iyo aada muhiim ugu ah bulshadana u haya runtii waa goobaha ama waa xafiiska caawimooyinku markay noo yimaadaan oo kale aanu u samayno in aanu halkaa ay bulshadii aanu kala xidhiidhno waa qaybta ay isku xidhan yihiin guddiyada xaafadaha ee 5 ah waa qaybta si dhayliya ama maalinlaha ula socota
dhaqdhaqaaqyada ka socda xafiisyada guddiyada xaafadaha oo runtii iyaga laftoodu ah xafiisyo aada iyo aada muhiim ugu ah maamul daadejinta marka la eegayana wax fara badan fududeeyey. xafiiskaasi wuxuu ururiyaa xogta dadka bulshada ku nool magaalada, hadday tahay qaar xanuunsanaya, hadday tahay qaar baahiyo gaara leh, haddii ay tahay qaar u baahan taakulo iyo gacan qabasho, haddii ay tahay qaar u baahan in wax lagala qabto noloshooda aasaasiga ah, waxyaalahaasoo dhan. sidoo kale goobaha u baahan in laga dhiso adeegyada aasaasiga ah ee bulshada ayuu soo jeedin ku leeyahay. faraca xiriirka dadweynaha waxyaalaha ugu muhiimsan ee shaqooyinkiisa ka mid ah oo si maalinlaa uu qabto waxaa ka mid ah kor u qaadista xiriirka bulshada iyo dowladda hoose ay leeyihiin, iyo sidoo kale inuu abuuro oo uu dhiirigeliyo ganacsiga iyo maalgashiga gudaha, sidoo kalena uu abuuro ama uu sameeyo oo uu la shaqeeyo guddi xaafadeedyada, soona ribood gareeyo kana war helo si maalinla ah xogaha bulshooyinka xaafadaha ku nool. qaybta wacyigelinta iyo arrimaha diinta iyaduna dabcan laba farac bay isugu jirtaa. faraca wacyigelinta oo ah inuu qaado messageka ama fariimaha dhammaanba dowladda hoose kasoo baxaya ee loo baahan yahay inay bulshada gaadho oo si maalinlaa uu u gaadhsiiyo, hadday tahay nadaafada, hadday tahay cashuuraha, hadday tahay waxyaalaha kale ee soo kordha, iyo sidoo kale wixii wacyigelin kale ah ama heer gobol ha noqoto sida covid-19 oo kale qayb weyn ka qaatay, ama heer gobol ha noqoto ama heer degmaba ha ahaatee qayb laxaad leh ayay ka qaataan. faraca arrimaha diinta isaguna mas-uuliyaad gaara ayuu leeyahay oo ah in uu gacanta ku hayo, soo diiwaangeliyo, la socdo dhammaan goobaha cibaadada ee masaajidada, iyo sidoo kalena madaarista inuu la socdo, sidoo kalena inuu sameeyo wacyigelin diimeed oo muxaadarooyin jadwal garaysan oo bil kasta inta loogu talagalay la qabto. muxaadarooyinkaasina inta badan ay ku salaysan yihiin sidii ay wax uga bedeli lahaayeen bulshadeenna, sidii wax uga bedeli lahaayeen adduun iyo aakhiraba runtii inay wax ka bedelaan ayaan ugu talagalay. qaybta gurmadka degdega iyo ka hortagga aafooyinka dabiiciga ah laba farac ayaa markaa isaguna hoos yimaado oo faracii dabdamiska iyo faraca ka hortagga aafooyinka ilaahay naguma keenee. markaa dabdamiska hadda waxaa nala jooga oo degmada degan oo runtii annaguna aanu qayb weyn ka nahay, maxay hayday tiim ka tirsan ama koox ka tirsan ciidanka dabdamiska qaranka jamhuuriyadda somalilan oo saldhig halkan ku leh, oo runtii dhalinyaro gaadhaysa ilaa 26 ay nooga soo qalin jebiyeen 6dii bilood u dambeysay tababar la soo siiyey, isla iminkana ay kusoo xaroodeen saldhigooda, qalabkoodii iyo gaadiidkoodii iyo gacan ku-hayntoodiina si fiican hadda ay u shaqaynayso. marka qaybahaasi waaweyn iyo faracyadaasi hoos yimaada waaxda arrimaha bulshadu dhammaantoodba waa qaybo iyo faracyo adeegii bulshada qabanaya oo kala duwan. sidaa daraaddeed muhiimadda ay leedahay waaxda arrimaha bulshadu waxaa inoo tilmaamaya xeerka, waxaa inoo tilmaamaya shaqooyinka ay qabanayaan qaybaha iyo faracyada kala duwan ee arrimaha bulshada. diyaar waxaanu nahay inaanu mar walba ka fikirno sidaanu horumar ugu samayn lahayn bulshada degan magaalada berbera, oo haddii aanu maad aragtay meel fiican bay noo maraysaa alxamdulilah. iminka haddii aanu intaa kasii badinana aanu dareensannahay ama qorshaha ay noogu jirto inaanu uga baxno magaalada, debadahana uga bixi karno oo degmooyinka kale ee hoos yimaada ama tuulooyinka hoos yimaada degmada berberana tuulooyinka hoos yimaada inaanu ka hawlgallo haddii ilaha yidhaahdo. meelo fara badan waanu ka hawlgallay oo matalan laasada wacaanu ka hawlgallay oo aanu u samaynay dam sitekii wax lagu gubayey, qashinka lagu gubayey, aanu u samaynay u shaqaalaysiinay dadkii qashinka ka ururinayay. markaa qorshaa way noogu jirtaa in berbere gudaheedoo keliya inaanaan ku koobnaanina inaanu u baxno tuulooyinka degmada hoos yimaada ee kalena aanu u baxno.
runtii waxaanu si weyn ugu mahadnaqaynaa bulshada reer berbera oo si hagar la-aana noola shaqaysa marka ay naga soo baxaan matalan awaamiir naga soo baxdo ama wacyigelin aanu siino iyaguna si fiican oo qurux badan u qaata aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa haddii aan shaqada bulshadu nala qabanaynin runtii wax badan noomay suuro galeen bulshadu aad bay noola shaqaysaa aad iyo aad bay u mahadsan yihiin qaybahooda kala duwan annaguna mar walba heegan waxaanu u nahay inaanu waajibaadka shaqo ee aanu qaranka u hayno ee uuna saaray sharciguna saaray inaanu fulino wixii dadaalka iyaga aanu ku dari karnana runtii inaanu ku darno waxaan kusoo koobayaa waaxda arrimaha bulshadu waxay leedahay qorshe sanadeedka ay leedahay ee kala duwan ama waxbarasho ha noqoto ama caafimaad ha noqoto ama xidhiirka dadweyne ha noqoto ama qaybihii kala duwanaa iminkaaynu soo sheegnay ha noqotee diyaar waxaan u nahay inaan mar walba sii kordhino oo tallaabada maanta halkaanu taagannahay berri inaanaan taagnaanin hal tallaabo ugu yaraan inaanu kusii darno haddii ilaha idhaahdo bulshadana aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu